بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كسو دوادا صافي channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshadeena. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin wax la iga soo weydiiyay dhowr goor oo ah sida loo rido miisaanka. khaasatan ay soo weydiiyeen gabdha dadka daawada ah. marka miisaan ridida ma aha wax sahlan oo dadka badi u sahlan. taday u sahlan tahay way jiraan inay miisaanka iska ridaan, laakiin dadka badi way ku adag tahay inay miisaanka ridaan. arrintaasna waxaa ka mas'uul ah sababo badan oo inaan halkan ku soo koobi karin, laakiin aan wax ka taaban doono. marka horta aan hal mid isla afgarano oo ah ma jiro wax macnihii wax la yiraahdo quick fix wax la yiraahdo ma jiraan, oo ama wax la qasanayo inta dukaan laga soo gato ama kiniini la cunayo oo markiiba maxay ahayto miisaanka ka ridaya ma jiraan. horta arrintaas waa inaad fahantaan. haddii la idinka daadiciyayna aydan rumaysan oo wax business ku shuqul ay tahay, miisaan ridida waxay u baahan tahay dadaal iyo qorshe u baahan tahay. dadaal iyo qorshe la'aan miisaan lama rido. wax meel yaala inta soo qaata qasqasaya cabaya miisaanka iska ridaya wax la yiraahdo ma jiraan. dadka bini aadanka ah na ilaahay si ay u kala sameeyay different. dadka waxay leeyihiin DNA dooda waa kala different, isku si u sameeyeen isku kala si bay u sameeysan yihiin, bodigooda kala si u shaqeeyaa. marka for example haddaan ku ilaado waxaana isku dhuubay anigoo miisaanka ku ridayay hoo adna sameey, waxaa laga yaabaa inaanay kuu shaqayn. maxaa yeelay dadka bini aadanka sidaa idinka horey uga dhawaajiyay waxyaabo badan ay ku kala duwanaan karaan. waxay ku kala duwanaan karaan horta cimilada lagu nool yahay lagu kala duwanaan karaa, da'da lagu kala duwanaan karaa, waxaa lagu kala duwanaan karaa dadaalka marka aan ka hadlayo waxa weeyaan dadka qaara maxay ahayto waxay go'aansadaan fuliye, dadka qaarna marna waa sameeyaan marna ma sameeyaan. marka waa la kala dadaal fiican yahay, waa la kala dhaqaale fiican yahay, waa la kala caafimaad duwan yahay. waxyaabahaasoo dhan ayaa dadka ay ku kala duwanaan karaan. marka ma jirto wax qof walbaba u shaqaynayo, wax aniga ii shaqaynayo kulligiina idin wada shaqaynayo ma jiro. qof walba jirkiisa waa gooni, qof walba ilaahay si gooni u sameeyay. marka waa inaad adiga laga rabaa waxa ku shaqaynaya iyo waxaan ku shaqaynaynin aad ogaatid oo waxyaabo tijaabisid oo health lifestyle aad samaysatid. oo health lifestyle kaas aad samaysatayna aadan maalina samayn maalina aadan ka tagin ee ay tahay mid aad raacdid oo rasmiya. marka haddii aad tahay qof raadinaya wax magic oo quick ah oo intuu maanta qasto markiiba 5 kiilo ay ka dhacayso haddaad tahay, videogan kuma anfacayo. laakiin haddaad tahay qof realistic ah oo ma garanaysaa raba inuu miisaanka iska rido si fiican oo tartiiba oo caqliga bini aadankana aan ka baxsanayn, soo dhawow. miisaan ridida sidaan horeyba idinku sheegay tacab iyo waxay u baahan tahay qorshe. tacabkaas iyo qorshahaas haddaad raacdid waad gaadhaysaa. waxyaabaha hadda internetka aan ku arkay iga yaabi waxa weeyaan qofaa video soo gelinayo dhahayo 5 kiilan 5 maxayto maalmood iskaga riday ama 10 kiilan 10 maalmood iskaga riday ama waxaan cab 3 maalmood gudahood waxaad arkaysaa result. marka waxyaabahaas waxa waaye waa waqti lumis. waxaan caqligaaga geli karin haddii lagu sheegana waa inaad garan kartaa. waxyaabo badan oo internetka ku jira wixii caqliga bini aadanka aanu qaadan karin. waxaan rajaynayaa inaad qofka bini aadanka ilaahay maskaxda siiyo uu fahmi karo. marka maxay ahayd hal arrin ayaan idiin sheegayaayo hadda internetka aad iyo aad looga hadlo, miisaan rididana idinka caawinaysa. haddaad gelisaan miisaan ridida waa idiin sheegay easy ma aha, tacabay u baahan tahay. tacabka haddaad diyaar u tahay waa hal arrin oo diinteena loogu sheegay 1400 sano ka hor ayaa lagu sheegay. waa soonka. gaaladii hadda soonkii fahmeen. soonka ayaa la isku duubaa miisaan dhaqso ah haddaad rabtid inaad ridid
waad soomaysaa. inkastay siday u soomaan ay sideena ka duwan tahay, waxay sameeyaan wax la yiraahdo oo hadda caan internetka ka noqday intermittent fasting. intermittent fasting ka marka waxay sameeyaan maalintii dhowr saacadood oo kamid ah ayay sameeyaan. dhowr saacadood waxa laga yaabaa inay cuntada ka soomaan ilaa 6 galabnimo kale ay cuntada ka soomaan, oo hadhow 6 iyo wixii ka dambeeyay ay wax cunaan. waxaas ay cunayaan ay tahay wax kalorigooda qiyaasan yahay, ma aha waxaan waalida oo anaga markaan Soomaalideena soonka jabinayno aan adduunka oo dhan laqna, ma aha. waa wax qorshaysan, cunto healthy ah oo limit leh ay ku jabinayaan soonka. marka haddaad rabtid miisaan degdeg inaad iska ridid, number 1 waa inaad diyaar u tahay inaad soontid. hadaalin wax kale ha raadinin, soon cibaadana waa ka helaysaa, miisaanna waa kaaga dhacayaa. miisaan dhicidda kaliya ma aha, jirkaagana benefit badan ayuu ka helayaa. waa soonka runta ah Ilaahay noo soo rogay iyo sababuhu noogu soo rogay ayay kamid tahay, caafimaadka ku jira ayaa naloogu soo rogay. marka haddaad intermittent fasting kan ay dadkan sameynayaan iska taa. haddaad nabigeena calayhi salaatu wasalaam siduu yeeli jiray raacdid, for example isniin kasta iyo khamiis kasta aad soontid, ajarkeedana waa helaysaa. miisaan dhaqso aan wuu kaa dhacayaa. habkaas waa habka gaalada ay hadda fahmeen miisaanka ku ridaan. waa 1 haddaad tacabkaas diyaar u tahay. 2 miisaanka laguma rido in meel la fadhiyo la sheekeeyo miisaana i koray ala miisaankan saan iska yeela iyo la sheekeeyo riyo iyo sheeko iyo ma aha. miisaan ridida tacab iyo dadaal ay u baahan tahay. haddaad dadaalkaas diyaar u tahay, waxaa u baahan tahay maalintii ugu yaraan not nus saaca ma aha, 1 hour a day. waa inaad lugaysaa oo si fiican, oo sidaan Soomaalida ay u lugaysay Somali style-ka ahna aan ahayn uun la isjiidayo lugaha uun dee la isdaba dhigayo, ma aha. socod haddaad rabtid inaad socotid, waa inaad socod habaysan socotaa, oo inta aad tallaabsan kartid tallaabsataa. socod boobsiis samaysaa. waa inaad maxay tahay hoosta suwaal fiican oo jirka kuu qabanaya intaad ka xiratid, kaba khafiif oo socodka loogu talagalay qaadatid, tallaabada boobsiisaa. kaasna maxay tahay calories badan ayaad ku gubaysaa. miisaan dhicidana way kaa caawinaysaa. socodka waa important. haddaad wax exercise kale ku dari kartid waa adiga, laakiin socodka waana easy, waana free. ta saddexaad aan idinkula talinayo waxay tahay cunto nadiifa inaad cuntaan. cunto nadiifa inaad cuntaan oo rasmiyaysataan. weliba ma aha inaad muddo gaaban tiraad oo miisaanka iska ridayaayo waxaan cunayaa, ma aha. waa inaad guriga nadiifisaa. ma aha inaad guriga nadiifisidoo dhulka tirtirtido maxay too armaajooyinka akli, ma aha. guriga inaad nadiifisid waxaan ka wadaa cunto nadiifa waa inay gurigaaga taalaa. cunto nadiifa waa inaad cuntaa. adiga kaliya ma aha, macal family-ga oo dhan, ciyaalka oo dhan waa inaad bartaa guriga si nadiif ah oo clean ah in looga nool yahay. cuntooyinkana horaan uga hadlay. haddaa cuntada nadiifta ah waxaan ka wado iyo arrimahaas aad rabtaa inaad ogaataan, videoyo badan arrintaas ka sameeyay, dib ugu noqda daawada. ta kale oo miisaanka kaa caawinaysa waxay tahay hurdadaada inaad rasmi ka dhigtid, oo hurdo fiican oo kugu filan seexatid. hurdada video kale waaye, sheekada hurdada iyo ujeedooyinkeeda diintana loogu sheegay. hurdada wixii diinta Ilaahay noo soo dejiyay ay noo sheegtay haddaad raacdid, uu nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, wax kaa halaabay mala. caafimaadka bini'aadanka oo dhan hurdo ayay ku xidhantay. hurdo fiican haddaad seexatid oo waqti fiican seexatid, waqti fiican toostid, meel walba oo noloshaada ka mid ah ayay anfacaysaa. arrintaas waa sheeko kale hadda ma gelayo, laakiin hurdada inaad hurdadaada wanaajisid waa iyadana waa muhim waaye. qodobka kale oo aan kula talinayo waxay tahay inaad biyo fiican cabtaan, jidhka biyo ku filan uu helo oo uu hydrate garoobo. iyadana waa important. caafimaadkaaga guud oo dhan ayay important u tahay inaad biyaha cabtaan. hadda waxaan ogaaday dadkeena biyaha inaanayba cabinba, oo inay cabayaan juice iyo wax macmacaan mooyaane aanay biyaha cad cabin. biyaha cad waa muhim, aad iyo aad ayay muhim u yihiin.
waa inaad biyo fiican oo jirka ku filan uu helaa uu hydrate garoobo marka jirkaaga uu hydrate garoobo caafimaadkaaga oo dhan ay ka muuqanaysaa xataa maqaarkaaga skinkaaga wajigaaga ay ka muuqanaysaa marka biyaha ha dhayalsanina qodobadaas aan idin sheegay oo dhan wax aqliga bini'aadamka ka baxsanna ma aha waa wax aad wada fahmaysaan inay important tahay haddaad qodobadaas raacdaan miisaanka ayay markaas idinka ridaysaa waxa kaloo aniga shakhsiyan aan tijaabiyey oo aan jawaab degdega ka arkay waxay tahay haddaad cuntadaada ka saartid burka iyo sonkorta ama sonkorta aabad yaraysidba sonkorta waa jecelnahay sonkortana aad u yaraysid burkana aad waqti kooban aad cuntada burkale markaan cunto burkale ka hadlayo waa baastada iyo maxay too rootida iyo buskudka iyo keegaga iyo cuntada badi buray ka samaysantahay sida aad wada ogtihiinba marka haddaad cuntada burka leh oo dhan khadka ka saartid oo aad isticmaashid gluten free haddaad isticmaashid 3 wiigan arrintaas tijaabinaya aniga miisaan fiican ayaa kaa dhacaya ma ku dhahayo 5 kiilo kaa dhacaysa laakiin waa laga yaabaa ilaa 2-3 kiilo inay kaa dhacdo laakiin waxay ku xiran tahay de wixii kale aad ku dartid cuntada burka waa joojisaha sonkorta yaraysid socotid maxay tahay soonka ku sii dartid ani soon kuma daray laakiin da soon ku sii dartid faa'iidada waa sii kordhaysaa haddaad cunto nadiif ah cuntid faa'iidada waa sii kordhaysaa marka cuntada burka leh haddaad dhintaan ama aad yara joojisaan muddo kooban jawaab degdega arkaysaan anaa taas tijaabiyey maxay ahayd to sonkorta waa idin sheegay in la yareeyo waa fiican tahay wax ma jiraan aniga i anfacaya adigana ku anfacaya ma jiraan waa inaad jirkaaga waxyaabaha aan ku kala duwannahay oo ilaahay abuuristiisa ka soko waxaa jira waxyaabo dadka bini'aadamka ay ku kala duwan yihiin like dadka qaara metabolism wax la yiraahdaa jira metabolismka waa habka jirka cuntada intuu u dheefshiido uu energy ugu bedelo markiiba marka dad ayaa metabolismkooda slow yahay oo maanta oo dhan aan cuntadii dheefshiidaynin ba gubaynin oo energy ka dhigaynin oo cuntadii iyagoo tii horeba la dhigi karayn tii kalena imaanaysa dadna waa dad markiiba waxay jirkooda gala markiiba gubaya marka waa la kala duwan yahay marka waxaa laga yaabaa inaad tahay dadka metabolismkooda slowga yahay oo cuntadaba inay gubaan ay waqti qaadanayso aniga waxaa laga yaabaa inaan ahayba dadka quick maxay too waxa cuntada markiiba gubaya marka waa la kala duwan yahay kala duwanaantaasna waxyaabaha keena dadka qaar waa u dhasheen dadka qaar inay metabolismkooda slow noqdo xanuunaa keeni kara waxaa keeni kara inaad cuntada aad cunaysid oo xun daraadeed ay metabolismkaaga uu slow noqday waxyaabo badana waxyaabahan keeni kara marka wax maajiga ma jiraan wax walba tacab iyo dadaal ay u baahan yihiin haddaad tacabka iyo dadaalka u baahan tahay miisaanka si caafimaad qabta oo tartiiba ayaad u ridi kartaa usoo diyaar garow tacabkii la imow dadaalkii la imow waxaan rajaynayaa videogan inaad ka faa'iidaysateen haddaad ka faa'iidaysateen ama jeclaysateen waxaan idinka codsanayaa inaad thumbs up siisaan subscribe garaysaan haddaad maxay wax comment qabtaan xagga hoose iigu soo qortaan idinkoo mahadsan wassalaamu calaykum waraxmatullaah